السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabteyda qaaliga maanta maxaa inay haya maanta waxaa inay haya sidii jirka amarsanaysid oo aad iyo aad u faa'iido badan oo maasha Allah jirkaaga dhiganayso ku qurxinayso jajabkii waxaas ka biinayso asxaabteyda qaaliga insha Allah waxaa isla arkaynaa sida u sameeysanay waxaa ka soo sameeysanay ku soo dhawaada ugu horeynta asxaabteyda qaaliga waxaan ku haystaa karoot soo dhaqay soo nadiifiyay maasha Allah hadda waxaan sameynayaa dubka ayaan ka fiiqayaa inaba caadi maahan ka faa'iideysta karootku wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad tiro badan dhowr fitamiin ku jirto ilaa 3 fitamiin ku jirto jirka uu ku qurxinayaa kaaliska kaaga dhigaya jirka wuxuu kaaga dhigaya jajabka iyo waxaas dhan ka dhameynaysa insha Allah wixii kale ku darsanayna waa arkaynaa sidoo kale waxaa ku darsanaynaa asxaabteyda qaaliga saliid saytuun markii asaas u soo nadiifiyay aan korka ka soo hoolay waxaa soo qaatay bahalka karootka lagu hoolayo waxaa ka isticmaalayaa meesha waaweynka isticmaalayaa asxaabteyda qaaliga inaba caadi maahan ku dhahay alaabtan ka faa'iideysta insha Allah marka saasaan ku dhameynaya ayada saas u soo hoolaya asxaabteyda qaaliga sida saa u soo dhameeyay waa u jeedin marka sida u soo dhameeyo waxa sameynaya hadda diyaar inoo tahay waxa sameynaya dabka ayaan waxaan soo saaranaya maqlaha marka dabka soo saarto asxaabteyda qaaliga waxa ugu horeyn waxaan soo qaadanaya saliid saytuunta waxa waaye qiyaas ahaan waxa ka dhiganaysaa ilaa 4 qaado ilaa 5 qaado ka dhiganaysaa alaabta dhin badan ku haynaysaa ilaa bil ku haynaysaa intaas markaa sameysata asxaabteyda qaaliga saliid saytuunta ama olive oil sida u garanaysid iyo waxaan ka sameynaynaa 3 xabo karoot sidaad arkayseenba waa kaas asxaabteyda qaaliga markii aan saas ugu shubto saliida waxaan soo qaadanayaa karootka aan soo hoolay oo ku shubanaynaa adiga muddo waxaa dabka u daynaynaa ilaa 30 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo dabkana waxaa u geynayaa meesha ugu hooseysa dabka geynaya dab very low ku sameynaynaa haddii aad dab badan u isticmaashid way kaa gumanaysaa karootka wixii sida faa'iidada rabtayna ma ka helaysid marka dabka aad iyo aad ugu gaabi waa u jeedin hadda way soo abrinaysaa abuurka zaid u soo badanaya zaid marka dambe soo abrinaysaa sababtoo aan dheecankeedii dhan waxay aadaysaa saliid galayso dabka zaid ugu gaabinaysaa sida arkaysiinba aniga zaid ugu gaaban yahay dabka waana sugaysaa ilaa 30 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo ilaa 32 daqiiqo 33 daqiiqo saas u soo abrisay adiga hadda 33 daqiiqo ii saarnayd aniga maanta marka sameynayay ilaa 33 daqiiqo ayay ii saarnayd adigana saas oo kale aan ka rajeynaya sida rabtid sida loogu talagalay hadaa rabtid inay ku noqoto sidaas samee insha Allah sidaas fiican saas markii noogu abriso baasheena hadda waxay sheegaysaa inay diyaar tahay waayo brown ay isku bedelaysaa marka aad dareemaysa inay diyaar tahay waa inay brown saas oo kale isku bedesho asxaabteeda qaaliga abuurkeedana waa inuu saas noqdo ayadana midabkeeda waa inuu jaalahaas isku bedelo karootka aw lagu gududnaa sidoo kale saliid saytuuntana ayadana jaala zaid ma aha laakiin xogaa yar jaala ku jiro green ay bixigtaaba marka laakiin hadda jaala isku bedeshay waa u jeedin asxaabteyda qaaliga hadda diyaar ay noo tahay waa u jeedin jirkayga marinaya inaba caadi maahan marka soo qubayska bacdi marso jirkaaga dhan mari lugaha gacmaha wajiga xataa hadii aad saliid ku lahayn wajiga oo face qalalan leedahay ama waji qalalan leedahay way ku anfacaysaa wajiga xataa marso maasha Allah kaaga dhigaysaa ku dhalaalayso quruxna kaaga dhigaysaa marka hadda waa noo diyaar way noo soo qabowday asxaabteeda qaaliga u jeedin saasay noo soo noqotay alaabteeni inaba caadi maahan maasha Allah inta yarta waxay ku haynaysaa 3 bilood aan dhihiray ilaa bil ku haynaysaa ilaa 2 bilood ku haynaysaa asxaabteeda qaaliga aan jeclahay hadda waa miiranaynaa u jeedin waa miiraya hadda waa kaasa waa miiraya asxaabteeda karootka saas markuu yahay haddii aad dad badan ku joogtiin aa iska daadinin asaga laftirkiisa meel ku shubo sababtoo saliida ku dhex jirto meel isaga shubo shayga ku miiraysa ku dhigo hadba marso jirka xogaa yarta uga soo qaadatid saliida ku jirto maasha Allah wallahi ma qiyaasi kartid aan ku dhahay faa'iido ku jirto jirkaaga smooth kaaga dhigaa oo ku qurxinaysa karootka iyo saliida la isku sameeyay waana alaab natural ama dabiiciya ama waxyaalaha oo wadankeena laga helaayay
saliida waa helaysaa soo maaha waana waxa adiga ogtahay oo chemical wax ay isku jirin oo adiga naftaada aad ogaa samaysatay waxa maanta ka shakinaysid maahan marka hadda waa miireynaa asxaabteeda qaaliga saliida dhan aan ka miiranayna insha Allah waxaan rajeynayaa inaad igu caajisin videoga aad ku soo sameeyay aad ka heli doontiin بليس دا channelka ku cusub tahay soo dhawow gacmo furan qalbi furan ku soo dhawow subscribe noo saar dhiirigelin waaye adigana wax lacag oo laga rabo ma laha mashruud lagu xiraayo youtube ka iska daawanaysa walaasha u faa'iideey adigana ka faa'iideyso hadaa wiil tahay hadaa gabar tahay I don't care laakiin ana dhalinyaro wiilasha badana channelka wiilala ku xiran asxaabteeda qaaliga saas markay noo noqotay waxa sameynaya waxa soo qabsanaya meesha ku shuban lahaa awal qaar kale igu si jira isticmaalay awal hore isticmaalay hadda ka hor sameystay marka oo ku shubaneena dhimalaha way noo qaadaysaa marka waa kaas oo ku shubaneena caagan hadda isticmaalayo hadii aad haysan shay walbo oo dabool leh oo haysatid kugu filan adiga wixii aad haysatid isticmaalaysa Soomahan muhiim ah kan oo kale inaad raadisid bahal dhiiqa bahal waxay sida barfunka la soo buufinayo camal ay haysatay cunti aan raadiyo hadhihin laakiin waa inaad waxa haysatay isticmaashid asxaabteena waa kaas alaabteena saliideena marka hore saas u ekeed waa u jeedin farqiga u dhaxeeyo halkaas fitamiinaadka iyo waxa fiican ku jira adiga waa garanaysaa marka waa kaas alaabteena marka hore saas ay ahayd haddana saas ay noo noqotay aad iyo aad aynu ku mahadcelinahay mar walba saa commentiyada quruxda badan igu soo qortiin iyo la socotiin inta video la mid kulmi doona waxaan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo bye bye assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh